magaalada Boosaaso maanta waxaa dil toogasho lagu fuliyay laba kamid ah ragii kufsaday dilkana u geystay Caasho Ilyas oo ahayd gabar 13 jir ah bishii Febraayo ee sanadkii tagay 2019 falka kufsiga ee dilka ah ayaa ka dhacay magaalada Gaalkacyo toogashada labada nin ee maanta xukunka lagu riday ayaa lagu helay falkaasi Aabe Ilyas Aadan oo dhalay Caasho Ilyas ayaa xukunka dilka toogashada kadib waxa uu la hadlay warbaahinta isagoona sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in maanta xukunka dilka uu ku dhaco raggan lagu eedeeyay falka kufsiga ee dilka ee Caasho Ilyas wala uu sheegay in mid kamid ah saddexdii eedeysane dib loo dhigay Aabe Ilyas oo si hadlay ayaa sheegay inuu aad u faraxsan yahay sida uu dhacay falka qisaasta ah ee lagu fuliyay raggaasi isla markaana uu isaga goobjoog ka ahaa goobta lagu toogtay maanta saaka 2 saac oo ay tahay Febraayo 11 waxaa la qisaasay laba nin oo dambiilayaashii ahaa oo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige baa la qisaasay maanta aad iyo aad baan anagana qisaastay waana ku faraxsanahay ninkii saddexaad maadaama saddex nin oo xukumanayeen dilkana maanta lagu wada furiyay maxaa dib u dhigay ninkii saddexaad waxaa dib u dhigay 10 cisho dib loo dhigay waana dambiilo ahaa codsi baa jiray xagga maartay dadka ah iyo annaka waana 10 waana la hubinayaa 10 cisho in dib loo dhigo go'aankaas maadaama saxiix madaxweynaha uu dhacay yoo ka yimi ma adiga go'aanka codsiga dhiibay mise cid kale ayaa gudbisay madaxweynaha gudbisay codsiga waxaa wada dhiibay aniga iyo dad iyaga ka tirsan baa wada dhiibnay in la hubiyo ninkaas waa anaga xageeyna dambiilo ahaa 10 cishaana la baaraya nimankii Caasho dilay waa wada yaqaanay daris baanu ahayn waanu wada hadalnay xataa waa iscafinay afis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha aakhiraan baa war jiraa baan ku yiri tiirkaana la geeyay waana la dilay labadiiba adigu goobjoog ma ahayn meesha lagu dilay goobjoog baan ahaa hataa markay dhinteen dhuunta iyo gacanta waa ka taabtay ninka haray cadeymo iyo awl waxa jiray in isaga iyo walaalkiisu la yiri DNA ga iskaga mid yihiin marka haddii ay dhacdo in ninkaasi uusan la yiraahdo dib loo noqdo oo la yiraahdo laba walaalo DNA ga isku mid bay noqon karaan ma ku qanci doontaa maxkamaddu ay dib ugu laabato go'aankaas DNA gu abiyo hooya wada dhalay laakiin maxaa ku jira falkii gabadha ku dhex jira ninkaas oo kufsiga ku dhex jira laftigiisa lacaankiisii baa ku jira shaawadiisii baa ku jirta dhiiggiisii baa ku jira hadduu la falgalay waa la heli doonaa qisaasta annagaa fushanay dawladdu waxay tiri fushadaa la yiri sharciga islaam weeyaane annagaa fushanay dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay Soomaali weynna waa u mahadinayaa dadkii dambigaas galay Caasho Ilyas Aadan ka galay waa la toogtay laba ninna waa dambeeya oo 10 cisho ayuu xirnaanaya baaris baa lagu jiraa kaas baaristaas haddii DNA la qaado kale waa arkaynaa haddii wada hadal u yimaadana waa arkaynaa laakiin 10 cisho loo dib waa xiran yahay kiiskan waxaa laga baranayaa 10 xoog leh gabdhaha Soomaaliyeedna waa badbaadahayaan una dhacay kiiskan waana la badbaadahayaa ummadda Soomaaliyeedna waa u sheegaya gidoo Yusuf Maxamed SBC Boosaaso